kulankan oo ay ka qayb galeen 30 kamid ah macallimiinta dugsiyada Quraanka xirada qaxootiga Ifo ayaa waxaa lagu qabtay xarunta iskuulka Ihya xirada Ifo waxaana soo qaban qaabiyay hormuudka iskuulada Ihya Sheekh Cabduladiif Sharif Ahmed oo macallimiinta guddoonsiiyay abaalmarino dhiirigelin iyo bogaadin oo sida wanaagsan ee Quraanka u baraan carruurta ay macallimiinta u yihiin arladan dusheeda wax socdo waxa ugu khayr badan waa dadka macallimiinta Quraanka dadka barayo Quraanka xambaarsan ku amal falayo awlaada barayo dadka weyn barayo xarafka saxayo ki qaldan saxayo ki toosan qaar kamid ah macallimiinta ka qayb galay kulanka lagu dhiirigelinay ayaa soo dhaweeyay xushmada loo muujiyay maadaama aan nahay macallimiintii bariisa ilmaha ardada Quraanka Kariimka waxaan la guddoonsiiyay waxyaabo fara badan ay maartay ku jiraan kitaab Quraanka marka aad baan ugu faraxsanahay anigoo maartay ka socdo markaska Ihya Ulumuddin qabtay lagu maamuusay culimada sharafta lagu maamuusay lagu soo dhaweeyay aan ku kulansanahay ila Allah isku kaana keenay mahadaas Allah ayaa iska leh marka kale labaysa shariifkeeni arintan daadihiyay sidan u qurux badan qiimigan dhigay sharaftan wanaaga dhigay asaga ayaa mahada iska leh aniga Abubakar weeyaan macallin Maxamed waxaan ka socdaa markaska Iqra iyo markaska labaad al-Imam Shaadibi insha Allah tabaaraka wa taala waanu ku faraxsanahay waana soo dhaweynayna maanta waxaan wala martiqaaday macadka macnaha Ihya iyo iskuulka dhamaantiis anaga ka socono macallimiintii oo raa'ifanahay marka aad baa meesha nagu soo dhaweeyay hadiya aad macnaha u khaalisana waan wala dhiibay shariifka ilaahay noo barakeeyo shariifka marka insha Allah taala waxaan leenahay Sheekh Cabduladiif Sharif Ahmed hormuudka iskuulada Ihya ayaa faahfaahiyay munaasabadoo daarneyd laba ujeedo sida uu sharxay maanta halkan waxaan ku qabanaynaa xafladaas laba arrimood bay iska tarkiibsan tahay mid waxa weeyaan dhiirigelinta macallimiinta madaarista dhiga iyo weliba dugsiyada dhiga ee Quraanka Kariimka xambaarsan dhiirigelintooda iyo inaan muxuu ahaayay aan dhiirigelino haddana hadiyadna aan siino insha Allah taala hadii Ilaahay yiraahdo waxa halkan aan ku martiqaadnay 30 macallin ayaa halkan aan ku martiqaadnay oo ah macallimiinta madaarista iyo dugsiyada Quraanka ka dhigaan إلى سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كوحكيرادي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنك يا قرآن كريم كأسود الجني إنك يا حفظنا إنا بويرادي ضد مركن له حفظي قرآن كريم كا وضد كان هل كان فضيو هي أمثال كونويان مركن ضد أيها إلهي وكل حفظي قرآن كا haddii ayaga ayan ahayn oo dadku Quraanka ay si baraynin Quraanku uu dabago ilaha marka macallimiinta amaan badan bay leeyihiin xagga diinta amaan badan bay ku leeyihiin xagga makhluuqa dhaxdiisana amaan badan bay ku leeyihiin inaga waxaan dooranay maanta inaan ku martiqaadno xarunteenan Ihya Ulumuddin inaan macallimiinta aan ku martiqaadno weliba hadiyad aan guddoonsiino ayaan dooranay qodobka labaad waxa weeyaan soo dhaweynta bisha barakeysan ee mawlud ee nabigeena uu dhashay calayhi salaatu wasalaam soo dhaweynteeda iyo daahfurkeeda qodobka labaad kaas weeyaan